laba qodob baa jirta qodob waa mid oo prime ministerkaygu uu ku dhawaaqay aniguna aan ka daba tegin oo ahayd ciidamada kala tagaano waa Cumar Ataqaab aadaan uga qoomeeyaa markii ma ahayn in amarkaas la bixiyo ma ahayn taas waa ka qoomeeyaa waxaan ka qoomeeyaa dagaalkii sokeeye aan u aqaano dagaalkii doqoneed aan u aqaano oo xamar ka dhacay oo mudulood iyo habargidir waa ka qoomeeyaa aadaan uga qoomeeyaa laakiin qofka khariisada uu leeyahay ninka bini'aadamka waxaa ku jira wax ilaahay uu ku abuuray haddii geedku xaniya taabad ay gaarto ya qofka wuxuu yani waxaa suurtaa inuu caqligu waxtaa ka dhumo ya laakiin anigu mid labada qodob oon ka qoomeeyo waa labadaas qodob waxa aad ka xasuusan karto adiga iyo Caydiid markii wax dhaceen dad badan baa idin soo dhex galay wax walba idin soo dhex galay waxyaabaha aad ka xasuusan karto islahayd alla ilaahay maalintaas inaad ama iska dayso ama si samayso ayay ahayd maxaa kamid ah ilaa kulamo badan aad yeelateen marka taariikh way waxaan ka wareysanayo maanta oo taariikhdaasi ay inay ka harto ya mustaqbalka la doonayo haye Caydiid anigu maalinaan u yeeray qolkayga jiifka wada tagnay hada waa private-ka qolka jiifka isla tagnay waa la Caydiidoo baqal aniga Jabuuti ma tegin doorasho halay doorto ma dhihin lacag kuma bixin ma weydiisan ma rabin waa lay soo doortay 2 sano waaye waxa lay siiyay aniga 2 sano anigu way ku badantaa ma rabo waxaan ku ballan qaadayaa sanad gudaheed doorashan samaynayaa isla soo sharaxi maayo waxaad yeelaysaa maalintaas adigu isharax halkaas sano gudaheed waxaan ku siinayaa wasiirka difaaca iyo taliyaha xoogga dalkan iskugu kaadiraya halkaasna sharaftaas hogsanaaw ku qaado laga diiday taas waa daciif midda oo yani aan islaahay waxaan weynay tolna kala qabtaan weyna maani Caydiid laba qof oo shakhsiyaadaan ahayn aniga waxaan ugu filanay asaga dadka aan ka dhalanay inay noo yeeraan ay yiraahdeen oo hebelo adaa gardan hamba hebelo adaa garle waa mar taas haday dhihi kari waayeen xoogaa ka cabsadeen waxayna dhihi kareen labadiina albaabka ka baxa واتي أي بعد ما ماذا علم والله بالله تالله ويلها واتي أي بعد على قرل عيد قرل سوق يندي لي جفدا كدلنا او iyo 350 meel lagu xiray la yiri nimankan kala reeba ee subaxii dambe iyo soo bixin yireen على قرل عيد قرل arintaasuna waa boog hawiye ku taalo inta aakhira ka aadaan ku oolayso waay markii Caydiid inta ma ka naxday ma soo ku farxad waa ka naxay waxa uga naxay nin muslim oo dhintay waxa uga naxay waay inkastoo laba dhinood isdagaalaysa aan ahayn laakiin nin adiga hada islaam tahay muslim tahay yani nin muslim oo dhintay waa inaad ka naxdaa waay dawlad waxaad ku soo jirtay 25 sano ma sidaad ii sheegtay madaxweynena waa soo noqotay wax xoolad dadweynaha oo kugu maqan ma jiraan wad ogtaa ma sha Allah xoolo dadweyne anigu waa xaday anoo yar oo dhalinyaro oo 20 jir ayaa waxaan xaday 25 kun oo shilin Soomaaliya shilin Soomaaliya 68 waaye waxaan ku dhistay guri siigaala ku yiro aan deganayaan ku dhistay 3 kun dhulan kala baxay 3 kun injiirkan siiyay 24 alaabaan ku gatay diinti markaan dib u bartay oo dib u eego dib yani u bawsaday waxaan ogaaday inaan qatar ku jiro oo guriga aan deganayana oo xalaal ahayn waxaan ku cunaayay xalaal ahayn waxa ii u dhashay ilaahay ogiya xaaladooda guriga waa sadaqay muddo ka baad adana waa fikiray waxaan iri wariyaa sadaqo waxa adigu leedahay sadaqaysataa see adiga guri deyn lagu lahay see u sadaqaynay وابح بقي قد حانتك واحد اللي مركز واحد اللي حسن شيخ وحسن شيخ محمود حل غدوه بشير عيسى نوتقي وحان كوير بشير بنقي قد حين وحان كوير لحدا إيه سيدي دولاركم ما هو هاي وهو هاي يقول لح شيلين يتمسيت سنت لما تشكر يقول قيبي وعين غتا أفركن يا $5 $10
حسن شيخان وتجي حسن شيخ مدحوينه مدحوينه وتجي هي لا يقول لك هو تجينا وحاس او شيء اسك داف ما يعني لو تجي او تجي وعلى العقل اللي يقول لي دولتها العقل يقول له اي شيء سدا يلا ما دام كو كينا بس ميلاد اي شيء يسان جيها بقى دحا كو شبو يقول بشير عيسى نوغي بقى دحا بشير بقى كو دحا رسمتي اسك برساري qasrada igu jirtaa waa guday iska guday lacag aan leeyahay oo dawlad leedahay haba qof bin aadan oo leeyahay oo i gashay halaas ay hayeen waana iska guday waa maasata dad badan baa waxay leeyihiin cali mahdi dabaqa ugu dheer magaalada muqdisho ama Soomaaliya oo dhan ayuu leeyahay hanti tiro badan ayaa gashay oo malaayiin ah xaquu ka keenaa la leeyahay oo jawaab sahlanta waa sahlanta toban afar dabaq waaye gurigu aniga xisaabta guriga khasnada kaasafo yani bangigayga wuxuu ku yaalaa meel la yiraahdo Bavia oo wadankee oo Talyaaniga oo Milano 25 kilomitir u jirto 93 daqiiqo igu dambaysa aniga oo aan 45 ku kala soo baxay maraan 93 aan tagay 5 kuna igu jirtay 5 kun ay ugu jirtay ilaa hadda shantii waa ku jirtaa saan u malaynayo xisaabtayda gurigaas aad ku dhistamaayno guriga horta aniga ma lihi gurigan baqa ma lihi aniga xaaskayga iskale aniga ma lihi wax shaqo aan ku leeyahay ee shirkayga oo ku jira haba yaraatee ma jiro intee ka keentay waa lacag intee ka keentay waa dawlad Abdullahi Yusuf ayaa waxa ay siisay aniga 100 kun 100 kun oo dollar ku siisay rag kale ay soo bartay lacagta laakiin waxa dawladda wax madax ka ahay Abdullahi Yusuf rag kale ay soo bartay ay siiyay xaaskayga Ameerika ka yimid 100 kun lacag igu ma ogeyn waxay 100 ka ku intee ka keentay 100 ka waa la siiyay ilaahay amarka anigu markaas laba bir ka bacdi yad Axmeday la dhihi jiray oo dhintay Horbuud dadka waaweyn ka mid oo iyada ay qaraabo yihiin ay midowna warshada waa diideen inaad wax ku dirsateen muxuu ahay sheerarke maanta hal sheero oo waxaan hayaa oo badan dhalay wax ma haysatay iyo intii 100 kan kun ma ka istaahila mise ka istaahila waa ka way istaahila isii basi 100 kan isii qontul kun waxa qaatay asaasiyaashii qontii kun wuxuu dhalay gurigan qofka iga rusaysaba qontii wuxuu dhalay gurigaas yani dhowr sano waa 10 sano camal waa jira ilaa wuxuu gaaray sheerarkayna wuxuu gaaray 1 milyan iyo 100 kun oo dollar waa gartay ayuu gaaray faa'iidadu waxay markii hore sanooyinka hore ahayd 130 90 sideetan hadda ugu yartaa waa 42 faa'iidadu faa'iida sheerka qofkii $100 waa 42 dollar hormuud lacagtii aan haysanay oo noo aruurtay waxay ahayd 1 milyan iyo 600 oo kun oo kaasha aan haysanay aad haysateen taasaan ku bilaawna shaqada inta kale sheerarka saan halba sheer u gadaynay hadda sheerarka noo heray moogi 200 miya 300 miya baada horta halaas gabadhaas aan iska leh anigu ma balihiba waa ku maasantaa laakiin su'aal markaan dadka dhex galo waxa jira hadallo ay dhahaan ama dadkii xilliga Cabdullaahi Yusuf joogay shaqeynay waxay leeyihiin oo habeen hore ugu dambeysay waxay leeyihiin علي مهدي وحو كفائيدي شركة دب وشيسينت كان دعاي مقالة مقدش واحد التالي العقد 6 مليون وسعودي لغا كان وعلي محمد جيدي وكان العقد تاسا وحال لي هي وحوغا كهلي ما جرتا تاس العقد تاس horta 3 مليون عبد الله يوسف ما كيرين علي جيدينا ما كيرين سعود انا كانay انا كانay taariikh badan ay leedahay taariikh dheer ma gelahay taariikhdaas lacagtaas waxa lagu shubay dawladda koontadeena ku shubatay oo anagu meelay ku dhigantaa iyo koonto oo waxay hadin sharciin lagu shubo iyo xisaab loo furo dib u heshiisiinta dawladda ku shubatay dawladdaas maamuleysay
anaka 4 milyan ayaa naloo dhiibay haye 4 milyan idoo lagu leeyahay 69,000 ayaa horta shirku dhamaaday waa gartay laakiin lacag lay siiyey Cabdullaahi Yuusuf iyo cali geed ay siiyeen jirta oo 2 milyan haye lacagta dawladda waxa u soo qaadayay nin oo xawaalada u soo qaada u keenayay lacagta markii la keenay jeeg oo 2 milyan ayaa ninkii lagu soo dhiibay ninkii qaatay ninkii qaatay 2 milyan lagu soo dhiibay soo dhiibay ninkii qaatay waa looga waa wax taariikh oo qabiilka u fadhiisteen oo ninkii laga waayay oo ninkii uu joogo xabar ya ninkaas qaatay